shirka laba qodob ku saabsanaa labada qodob wuxuu ahaa qodobka koowaad wuxuu ahaa hadalkii madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ka soo yeeray oo ahaa maamul goboleedka saddexda gobol in la dedejin doono dhismahooda marka madaxweynaha qaranka warkiisa ayaan taageeraynaa markii ugu horreeyay qodobkaas ahaa qodobka labaad wuxuu ahaa qodobitaanka ciidamada Itoobiya ciidanka Amisom ka mid noqdeen oo dib ugu soo noqdeen gobolada Bari ee Boqol oo weliba Boqol hadda aan soo gaarin oo hadda sidii aan ognahay ay ku soo fool leeyihiin taas ayaan ku taageeraynaa waayahay qodobka koowaad baan ka hadlaynaaye madaxweynuhu wuxuu sheegay in ay habboon tahay 3 gobol inaad samaysataan odayaashiina ku shiraya Baydhabo idinka marka fikirkeed taageerteen anigu kolba waxa waaye wadankan dawladda ka jirto oo waxa waaye dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliyeed wixii dawaab oo ka soo yeeran buu shacabka diyaar u yahay mooyane wax gaar ah ay samaysan karta ma jirto ma garan marka anigu dhawaaqa madaxweynaha ayaan taageernay sideedaba anigu waxaan nahay golaha maraaqida deegaanka nahay oo Baydhabo marka golahaasna golo weligooda yani dadkii dhibaato wixii dalkan ka dhacay oo dhibaato iyo burbur oo shacabkooda la qeybsaday intii joogay baahida maamul aan ku qabnaan aniga ma garan marka maamul in la helaa oo yani waxa uu la helaa oo madaxweynaha dhawaaqiisaan taageernay taasana diyaar u nahay dalkana dawladda u rabnaa kooda waqtigeeda waa dhamaaday waan gartay hore shirkan Baydhabo markii uu furmayay waxaad ku cilaamiseen in 6 gobol oo koonfurta Soomaaliya aad maamul u samaynaysaan 6daas gobol waxaa ka mid ahaa 3 gobol maamulka ku meel gaarka ah Jubba uu ka jiro hadda idinku waxa isbedelay oo aragteen maxay tahay u taageeraysaan 3 gobol in maamul loo sameeyo dawladda taageero ka haysan waxa dawladda Soomaaliyeed oo weyn caalamka ka soo hayaan dadka dawladdu leeyahay oo fahmeen meel go'aan soo istaaganta waxaan doonaan sameeyaa waqtigeeda waa soo dhamaaday Soomaaliya wax badan baa foodo ku soo jirtay wax badan baa la soo jafareeyay wax badan baa yani qabiilada isugu duulay maanta nidaam dawli ah dalka ka jira nidaamkaas waxaan yani ka hor imaanaya anigu raalli u leeyihiin golihii maraaqida deegaanka gobolka Bayaan nahay wixii dawladda ay diyaar la tahay oo shacabka nabadgooda oo yani kooxahan argagixisada oo dalkii arqalabeeyay oo nabadii oo wax walba oo tacabkii beeraha wax soo saarkooda dariiqa Baydhabo joognaa meelaha aadi kara ma aha Baydhabo kama bixi kara tuulooyinkeeda ma aadi kara degmooyinkeeda ma aadi kara ilaahay uu ku roonay haddii aad maanta qabaa'ilada isku dhaceen qabiilana qabiilada isku dhacaan banaanka hataa intaan tagno maslaxadooda waxba kama geysan karna intaan ku wadana marka nidaamka dawliga in la taageero wax walbana looga dhigi karaa mooyaane ma aha yani fooda wax soconaya ma aha mala taageeraya galabna ma siiyayna nidaamka dawliga ayaan taageersanahay marna walbana taageerayna anigu hadda fikirkiinan ku aadan in 3 gobol maamul loo sameeyo odayaashiina maanta shiray imisaad gaarayseen odayaasha golaha deegaanka 45 oday waa odayaasha waa badan yihiin oo diglaada jira waa badan yihiin ilaa 120 ay gaarayaan marka adaalagu nidaam dawli aan rabnaa 3 gobol aan noqoto 4 gobol aan noqoto 5 gobol aan noqoto wixii dawladda taageero siiyayso qarash ku bixiyayso fasiilada dawladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxa dhan ay u yihiin raalli ka nahay mooyane waxa yani in gooni ay samaysan karta ma jirto haddii markasaan ay noqoto in odayaashii Baydhabo joogay ay kala jabaan oo qorona ay 3 gobol taageerto qorona 6 gobol ay taageerto Soomaha marka in khilaaf cusub uu soo baxay oo gogosha Baydhabo ay tahay mid in lagu kala kaca ay u muuqato maya gogoshi ma lagu kala kacay maamulana laga sameeyaa 6 gobolna anigu waa degnaa 6 gobol mid degmo kuligi 6 gobol waa degnaa hadba sidii yani muxuu ahaa nidaamka dawliga jiro ugu ogolaado uu maamul uu taageerayo ugu dhisa 3 hadduu rabo hasraaciya hadduu rabo 4 hasraaciya hadba sidii yani madaxweynaha qaranka iyo jamhuuriyadda markaas yani qaranka oo dhisan go-aan ku gaara ayaan muxuu ahaa taageerayna anigu ma aha yani ma aha anigu 6 gobol ma degenayn kuligi 6 gobolna maamul looma sameeyahayna kuma degin laakiin uu maamul in la sameeyo wixii la sameeyahayna wax dawladda ka tahay inay ahaadaan waan gartay dhanka kale ciidamada Ethiopian ah ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo oo iyagu ka hore ka baxay odayaashiina iyo maamulka gobolka maanta waad jirteen Ethiopian kana rimooda maxaad ka tirahdeen Ethiopian waxay nabadgeliyada iyo wixii yani deegaanada aan dawladda gacanteeda ku jirin sidii dib loogu soo helin lahaa sidii yani dalka loo hasalin lahaa dowladan ba iyo boqol loo hasalin lahaa
iyo wanaag iyo nabadgelyo baan ka wada hadlayna wax kaloo gaar oo kala hadlayna maaha ciidankan sidiisaba yani wuxuu ka mid yahay African Union ayuu hadda ka mid noqday ururgoboleedkiiga ka joogeen kusoo biireen nidaamkaasina nidaam yani dowladda soo jaangoysay oo korka yimid waa anigoo dhaqameeda nahay marka deegaanka wixii quseeyaan ka hadlayna mooyana ciidamadaas soo shaqooda amarkeena kuma imaanin aniga yani amarkeena hadda wadalka ugu bixin waayahay joogitaankooda baydhabo iyo kusoo labashadooda amniga magaalada idinku maxaad dareenteen oo isbedel ah ما والله مجالات عملنا بقول كيف بقول والله دبعتها كم جيران قدرنا وحواي وحيد ضمنه هذا ضمنه أن قاعد تكجرين يعني صواري صوت الوصول هاي سلالة لا صعبوا هاي قدر مجالات جو جيران ودقيها marka jawigaas degan aad ii sheegaysid ma Ethiopian-ka soo laabtay ku dagtay ma saxaq alle markii hore ka deganeed waa yani ciidan xoog loo African Union ma joogeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo yani gobolka marka hore laga tababaray ilaa 3 gaar ayaa joogeen ayagana yani dib looma qabayn hadana kuwan ayaguna hadana waa kusoo darsameen markaas yani wax oo hadda labada maalmood ay yimaadeen oo nabadgelyo oo zaid oo hadda timaadeen ku shiiday ma jirta awlaada magaalada deganay ayagana gudbay waxa way dagaalkii u bay dagaal ku tareemayeen waxa yani dheeriyo ay yimaadeen oo tallaabo hadda qaadeen